وموسيقى ku dhex jira filimka Black Hawk Down ee laga metelay howlgalkii huwanta ee Soomaaliya ay ka fuliyeen sanadkii 1993 dagaal ka dhashay howlgalkaasi ayaa waxa uu dhex maray ciidamadii Mareykanka ee huwanta ka tirsanaa iyo taageerayaashii General Ciidiid ee diidanaa joogitaanka ciidamadaasi dagaalkii ugu xumaa waxa uu dhacay 3 Oktoobar 1993 maalintaasi oo ay dhinteen 18 askari oo Mareykan ah iyo dad badan oo Soomaali ah kuwa kalena ay ku naafoobeen 25 sano kadib ayaa maanta waxa laga xusay magaalada Muqdisho dhacdadaas iyo saameynteedii Bashiir Xasan Jimcaale waxa uu lugtiisa ku waayay Oktoobar 3 1993 dagaalkii galab axad ahayd dhacay xusuustiisa maalintaas ayuu ka waramayaa bareelisa wali naftu ku jirtaayo aan kaadida iyo xarkiisa duuba karin haddana dawladihii geystay oo America hogaaminaysay aysan inay geystay in kala aysan warba ka haynba ee ay ku siifaanayso inay ayadu ay burburinayso wali subaxaas markii aan siifaanleeyo waxaan ahayn dadkii soo dhaweeyay koow dawladahaas America hogaaminayso waxaana loo soo dhaweeyay inaan nahay dad dawlad jirta Soomaaliya waxaan soo dhaweynay dawladahaas markii aan soo dhaweynay soo dhaweyntii iyo karaamadii waxaana lagu bedelay duqayn iyo diyaarado iyo madaxda la laayo iyo wadani kasto la dilo iyo in la yiraahdo meel ay isugu yimaadaanba hala laayo rag iyo dumar ayadoo la reebin saqiir ayadoo dumar laga tagin ayadoo culimo laga tagin waxba la cafin ayay kulli dhameeyeen 16 saacadood baa waxa socday dagaalka 3 Oktoobar intaas xabadu kor iyo hoos way haysatay waxaana ku dhimatay kuna naafowday wax ka badan malaayiin qofood 16 saacadood hatta waan geysanay dawladihii waaweynaa baan nahay war waxbaan ka dhiibaynaa raali gelin iyo waxbaan ka dhiibaynaa wali maayne waxa hadda jooga ayadoo dawladda Soomaaliya oo aan tabar lahayn dhisan tahay baa waxa jooga wakiilka qaramada midoobay ay soo dirsatay nimanka sheeganaya oo haba yaraatee aan ka hadlayn dhibaatada naloo geystay gobol mintuulo min magaana madax marka ma waxay noogu yimaadeen inay hoteeladeeda guryahayaga ay nagu raaxaystaan dhibaatadana gaartay oo isha naga milcsadaan mise waxay noogu yimaadeen in ay dadka iyo dalka wax u qabtaan waa su'aal aan u dirayo dadkaas waa maadada koobaad ee Soomaaliya waxa haysata dadyowga laga tabarta badan yahay oo xoog lahayn oo waxa haysta dhibaato aan la koobi karin oo ah qaybi oo xukun oo loo sameeyay shakhsiyaad iyo maamulo iyo qaab daro iyo hadba sidii loo adeegsanayo 3 Oktoobar maaha marka dhacdo la hilmaami doono kuwa naga dambeeya hadday naga sii dambeeyaan iyo anagu ma hilmaami doono hadii la yiraahdo hooyo Xaliime Maxamuud Afrax iyaduna waxa ay joogtay duqeyntii dhacday maalintaas 3 jeer ayay ku dhaawacantay sida ay sheegtay hadal qiiraysan ayayna halkan ka sheegtay anigu maanta ma faraxsani dadka aad u sheekay karana kamid maahi waxaan kamid ahay hooyooyinkii dagaalkii gardarrada ahay oo Mareykan hogaaminayay oo 3 Oktoobar wiilashoodii ku waayay waxaan kamid ahay hooyooyinkii walaalahood ku waayay waxaan kamid ahay hooyooyinkii dhaawacmay sidaas daraadeed in la soo hadal qaadaaba waa idhibe waxaan la leeyahay arrintan waa la yareeyay berigii maxay ahayd oo ninkii asaga ahayo magaca gaalka oo yiri Ciidiidan soo qabana waxa la geynaa jasiirad ku taala meelebla maxkamad lagu saaraa habeenkii la ii sheegay waxaan yiri waxa Paris la geeyaa ninkii baxsiya badana waxa laga talaabshaa ninka bahqarin 100 saraakiil wiilkay u soo baxeen bilada dahab iyo ninkii baawir adag lahayd sidee baa loogu bootay boqorka naga pool markii la garaacay oo maxay ahayd diyaaraduna garaaceen waan ogayn wixii aan sameynay ilaahay nooga jirin gaalada marka gaalada inaad iska celin aad ku tala gasho ilaahay qafuur xil ku jabima dawladaha muslimiinta dhan sida loo galay waa aragteen
Mareykanka ayaa eedii ugu badneyd ee duqeynta maalintaasi dhacday iyo dadkii ku dhintay looga jeediyay halkan, waxaana ka qaybgalayaasha munaasabadan ay dalbadeen in magdhow Mareykanku uu ka bixiyo dadkii la dilay maalintaas. Dagaalkii dhacay 1993 Oktoobar 3 maanta oo kale 25 sano ka hor waxa uu Soomaaliya u ahaa mid ka mid ah maalmaha aan wanaagsanayn. Waxa isweydiintu tahay dadkani magdhow ma heli doonaan? Cali Aadan Muumin, Goobjoog, Muqdisho.